بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan aad uga mahadnaqayaa dhammaan martiirta ka soo qayb gashay munaasabadan sanad guurida 16aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynayaashii hore walaal wasiirada axsaabta qaranka shacab weynaha iyo marti sharafka dalalka ajaanibka ay ka mid yihiin Djibouti Ethiopia Ingiriiska iyo cid walba Soomaaliland wax tartay oo ciidanka ka joogtaba aan wada koobi kareen dhammaantood uga mahadnaqayn ka soo qayb galay shirkan waxa kaloon aad iyo aad u hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidankan maanta ay joogno xuskiisi ciidanka qaranka taliska guud wasaaradda jananada saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskooda waxaan leenahay hambalyo ilaahayna sanadkaas sanadkan u gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash weli ma qoran taariikhdeedu ciidanka qaranka Soomaaliland lama dejinin taariikhdiisa laakiin markaynu ciidanka qaranka Soomaaliland taariikhda bilaabayno waxaanu ka soo bilaabaynaa markii ugu horeysay ee Soomaaliland protectorate la bilaabay ciidankeedii ugu horeeyay ee qaran ee la bilaabo hore oo sheegnay munaasabadii ka horeysay 1902 ay ahayd saylac baa laga bilaabay markaasoo la sameeyay xadka Djibouti oo markaa Faransiis gumaysanayay iyo British Soomaaliland u dhaxeeya halka laga soo bilaabay ilaa maanta ciidanka qaranka Soomaaliland wuxuu soo hayay taariikh isbedelo horumaro iyo waayo duruufahooda leh tuur dheeraan maynta maanta waxa Ilaahay mahadiya in ciidanka qaranka Soomaaliland muddada uu jiray ay gobolada la soo noqonay maanta saddex sano ah intii uu jiray inuu adkaaday oo ciidan qaran noqday waxaan u sheegaynaa dhammaan caalamka inaguna nafeen lagu sheegaynaa kuwa kalsoonida ka dhiman tahay inuu ictiraafin waxaan u sheegaynaa ciidanka qaranka isaga oo la ictiraafin ayuu ku xoog weeyahay ciidamada kulli ictiraafay ka disciplin wanaagsan yahay ka aqoonsi badan yahay ka aqoonsi badan yahay ciidanka qaranka waa joogiisa halka waa laga sheegay ku noqon maayo waxaan u sheegayaa ciidamada qaranka si kala duwan dhammaantood muddooyinkan dambe oo qaranku uga mahadnaqaya iskaashi wacan oo amni iyo xilkii la saaray ee gudtay maanta waxa si wacan u shaqeynaya oo isku xiran ciidanka qaranka ka booliska ka asluubta ka socdaalka ka badda iyo ka wardoonka oo haddii ay soo baahdaan daqiiqada dhexdooda ku xidhiidha wixii aawlooda gudiya taasaanay ku sugeen amniga ay ku leeyahay ee dadku ku jooga cadowga ku daafaca waa ma hadda ciidankayaashooda iyo dhammaan xubnahooda iyo hawsha qaranka u hayaan adduunyada nina magaca buu joogaa nin af buu joogaa ciidamada qaranku waxay doonteen noocay yihiinba oo ciidanka qaranka ugu horeeya inay magaca doontaan dalkana waxa uga tagaan ee aan dheef doonin waa ku hambalyeena doorashadooda iyo qaranka hawsha u dhaafo ciidanka qaranka haddaan intaa ku dhaafo iyo munaasabadan maanta waxaa kaloo hambalyada ku soo gabagabeynaya kooxdii halkan gaashaan oo runtii iyaguna misaajida barnaamij wacan noo dhigay aad iyo aad baan iga hambalyeynaya taasi waxayna tusaysaa Soomaaliland inay leedahay dad mufakiriina dadka la yiraahdo way heesan way gabiyaan waa abwaano runtii waa dad mufakiriina waa dadka odorsan dadku waxaan arkay intooda badan waa dad ilaa oo cabiraan noloshu waxay tahay dhinac walba dhammaan dadka fakirana oo mahadnaqayna gaar ahaan kuwii maanta inoo soo jeediyay fikradoodana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna haddii aynu danta guud eegno maanta caalamka waxa ka jira isbedelo badan nin waliba halkiisa ayuu ku daalayahay oo ku dhibaataysay dad badan oo inaga warwar baa ka ilaalina ictiraafsanaya daala aqoonsanaan baynu hayo faqri baynu hayo dadka warwarka iyo mustaqbalka xururka warwar badan iyo walaac bay muujinayaan markaasay dhalinyaro badan niyad jabiyaan markaasay dhalinyaro jahortaan qaar tahriibaan qaar meel kale isku qaadaan oo ay nolosha meel gaaban ka arkaan horta waxaan idin sheegayaa dadka warka xun sheega ee adduunyada xagga xun ku arka ee xagga fiican ka arago qofka aad ku kalsoonaan ilaahay aaminsanayn baa taa qaba
marka leeyahay waa ictiraafsan adduunka waxa ugu ictiraaf weyn oo lagu tixgeliyaa waa Mareykanka waxa la yiraahdaa madaxweynaha Mareykanka ayaa qofka adduunka ugu awood weyn waa soo raacsan wajiga ugu dhaqaale badaha caalamka oo dhan diyaarada iyo maraakiib diyaarada xambaaraya iyo gujisyo iyo cirka qaar joogo oo dawaafiiri maanta madaxweynaha Mareykanka maxkamadda gudaha ka saaray go'aysi waa haystaa labada xisbi oo arkaysa waxa ka dhacay wadada nin waliba halkiisa inta ku waasatay adduunka waaye nolosha ayaa dhibaato bini'aadmiga loo diray quraanka sheegay in bini'aadmiga maanta dhashay ilaa maanta dhibanayo oo dhibaato xalinayo qof waliba intaalkiisa iyo halka uu joogo maanta waxa adduunka oo dhan ka dhaxla taariikhda oo la yiraahdo dimuqraadiyadda iyo ilbaha iyo taariikhda ingiriiska ugu facweyn ingiriiska maanta dib u xoroobay oo habeenada ka baxay Yurubiyaanka isagii kaleedo maanta oo asay Soomaaliya xorriyadda xorriyadda soo helay oo adduunyada dawlad xiriir doonayna oo bulsho cusub caawa ku furan oo arkaysa wax ka dhacaya oo habeenaya maalin seexawa dadka ayaa taatiibsan bariga dhexe khaliijka carabta maanta tahaysata cidna ma haysta ilaga loo seexanayna in khaliijka joogo caawa loo seexanaya ma jiro Iran iyo Sacuudiga waa haysta qatar iyo Abu Dhabi waa haysta iyaga barwaaqadii soo jiiray nin waliba caawa fikrad buu ku seexanaya iyo walwal iyo walaaciyo toro maxay noqon waa cidii dhaata ma jirto dadka nabad ku seexanaya dadkiina haysta ilaahayna aaminsan baa la yidhi kama kana dhaafo markaynu eegayska Afrika ee ku noolahay maanta waxa ka socda isbedel cajiib ah caawanina iyo dal caawa Soomaaliland ay jabto jirka saa ka nabad badan ama ka warac yare ma jiro Suudaan waa tan wixii ka dhacay saaka Masar oo Egypt iyo Ethiopia iyo ay Masar waxa ka dhacay biyo la isku haystaa midkooda Masar oo wax ka dhacay Allah oo Ethiopia isbedel cajiib ah ka socda oo adduunka oo dhan eegayo oo aan u rajeynaa in kana wadgalaa isbedel soo socda oo ku dhameystaan waa jeerkeena barwaaqada oo soo gaadha jeerkeena dabkiisa oo soo gaadha dabka muqdisho oo furka socda ugu filan jeerkeena kana ay dabka ka dabiyo kuwa iyagana ka dabiyo iyana Ethiopia caawaadkana waxyaalaha ka socda kuwa fur hadalkeeda daa hamar iyo Soomaaliya sadkiisa uu dambeeyay oo ducaynay ilaahayna ducada wari laga wada qarin oo waa gubanaya iyagana wari talama helin inaga dhibay ugu haya kii waa arkaysa madaxweynaha ku-xigeenkii baa isaya wali ruutu iyo dawladda loo saarayo waxa soo noqday Raila iyo ninka adugeeda maartay loo tirayeen labada aabayshaysteen ee Uhuru oo labadooda wadaadii isku qabsadeen siyaasadda oo laba qoys oo ku hadba Kenya aha ayaa maanta isu soo sanqanaya oo kuwii kale ka eegaya oo laga yaabo in kiistoorka dadii u dalaan waa adduunyada nin wadan ku seexaraya ma jiro dhibta adduunka waa lagu talagalay bini'aadmiga xaliya kamid baynu nahay saas Ilaahay ugu galaday oo muwaafaqo iyo nabad nasiib waxa adduunka isu weedaaranayo ee nin walba ku dilacsan tahay maanta Soomaaliya sanadkan wuxuu ahaa sanadkii nabadda iyo midnimada iyo safgarka dhibaatooyinkooda iyo dhalay ku xalisay iyadoo ciidan oo soo gudbay laba sano cadawgan wuxuu hurayay dagaalo qabaa'ila qaar dhexda ciidamada ah qaar kale oo propaganda ah wax walba cadawga Soomaaliya isku geeyay Soomaaliya laba sano iyo barigeedba uu galiyo ku gudbiyo waxa Ilaahay mahadiya iyadoo ciidan soo gurma oo ciidamada jireen loo keenay oo ma aqooyahan loo keenay oo ciidan inoo taageerin in dadkeena oo shacabku kor ka yahay oo haweenkii arrinta uga yihiin ilayga nabada jecel oo odayo ka mid yahay oo sheekhu ka mid yahay oo ganacsado ka mid yahay oo abwaanadu markii oo research koox soo raaceen ceelgaabo tagay iyagoo labaatan abwaan mid waliba dhiiguda ay ka jeediyay oo kii heesay ka heesay oo kii warramay wanaagsan ka sheegay oo dawlad iyo dad ay soo tagnay in maanta dalkeena gees ilaa ka gees nabad ugu seexanayo beeli heshiiyeen ciidamada saad wixii islaashay heshiiyeen axsaabtii qaranku ka heshiiyay doorashada inay wada gasho iyo fursado wax ay mooyaan buusha Ilaahay nasiiyay waxaan u baahnaa inuu sii wado awgeesha ma ka dhaxlaysan markii Soomaali doonaysa xornimada shanta Soomaaliyeed ay soo qayraysay waxa laga bilaabay Soomaaliland iyada horseed ka ahayd midnimada Soomaalida horumarkeeda wanaaggeeda iyada dhammaan gabiya wuxuu gabay ku bilaabaa Hargeysa waa hoygii suugaanta waa hoygii oday martida waa hoygii Hargeysa odayaasheedii
iyo burco iyo laascaanood iyo boorame somaliland isu wada geey taa aynoo bilaabeen dhaqanka aynoo ahayd ee ah inaynu samaha ka tagno xagga hore indood eego aynu awoyaasha ka dhexlay ka awowilaa ka awow ee aad arkayso inay somaliland tahay afrikada qura mid yaa loo mooyaane ee la gashay isticmaalkii heshiista ked walba iyo reer walba u yimidba la saxeexday dhammaan heshiis isku mid a ka bilow saylac ilaa iyo laasqore heshiiska la galay isticmaalku wuxuu wada ahaa dalka iyaga annaga ah kuma dhali kartaan markaan u baahana naga guulaysaan taladana noo dhaafmaysaan ma jiro dal afrika oo kale oo heshiisyadaa qortay waa waxay wadala dhibaataysan yihiin innaga oo taasi ku talaalan tahay somaliland taariikhdeeda maantana waxaa laga rabaa somaliland inay iyana horumar iyo isku tashi samayso kuwa dhiban ee jaarkeena soomaaliya waxba kuwaa eegmeen oo talafisumeyne inaga gurmad inooga baahan yihi tala inooga baahan yihi duca inooga baahan yihi u adkaysi dhibaatadooda aynu adkaysan inta inaga nagu hayaan inta talada haysa weeye shicibka soomaaliya ee maanta kismaayo jooga ee xamar jooga ee garowe jooga ee jooga dhuusamareeb waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin talo cidda ugu sakaysa wax ka sugayana waa inaga haddaynu kuwa ku dayacno oo inugu dhex weyno inaynu wax u qabano oo inagu horumar samayno kuwa madaxda u ah ee soddonka sano leelinaya ee iyaga isku diraya ee kuwa maanta joogaa 7 bilood isku dirayaan dhuusamareeb dadka degan miyaad ka sugaysaa kuwa maanta talada haya adiga inay wax ku taraan waa maya kuwa tale ka sugi mayno caalamka ictiraafkii waxay ka dhigtaan inay soomaalida kor dagaalamaan soomaaliyana u gooyaan qurquriyo magaalo soo horgeeyaan waa arkaysaan kismaayo waa arkaysaan baydhabo waa arkaysaan garowe kuwa kala saari waaye iyaga u kala xaglinaya ee ciidankiiyo awood iyo ictiraafkiiyo dowladaha iyo safaaradaha u yeedhan iyaga isku diraya innagana oo waxay dhibaato inagu hayaan maaha mid inagana u cedanay waa tala xumo ay soomaali oo dhan ku jabinayaan kuwa talada xamar hayaan guud ahaan isku daro halkaa maanta waxa looga haqal taagaa ma jirto meeshaa waxa ka socda waa dacaayad iyo propaganda iyo tv la isticmaalo oo aan cidna u danaynayn markaynu taa ka soo wadna ee inu nagu somaliland maanta maxaa loo gudboon somaliland xukuumaddan maanta hogaaminaya labada sano sideedaad waxay isu geysay marka hore 3 qodob waa koow waa inay dalka nabadka xasiiliso dhibaato kastoo dhacana waa in loo maro hab nabada waa in la yareeyaa khilaaf kasta khilaafku waa dabka oo kale dabku markuu walaaqo horta waa la xidhaa markaasaa la debiyaa dowladda siyaasadeeda waxa weeye khilaafka bini aadamna wuu imanaya gobollaa isku dhacaya beelaa isku dhacaya xisbiyaa isku dhacaya waxaynu u baahannahay khilaafka marka hore in la koobo deetana dadka la debiyo laba in dadka la mideeyo oo dadka maxaa dhex yaalla dadku war isuma hayo maanta baa sacaanad iyo boyr war isuma hayaan gabre iyo barano war isuma hayaan ceelgaabiya hargeysa joogaana war isuma hayo maxaa dhacay muddo dheer oo qas iyo qalaas dalkeena ka soo joogay oo ku sidan 100 sanadood ilaa dagaalkii labaad ee adduunka ilaa maanta geeska afrika ma helin guud ahaan nabad kolba ciidamada isku darayay u fiirso awoodii dagaal buha kuwa reer Jabuuti ka toos iyo aan soo wadayaasha dagaaladii galay waa ku koreytoonka galay micnaheeda kuwa hargeysa galay waa scout barmaantay wali way sii nooyay ku warramay ee la qaab ee dagaalka adduunka oo wuxuu gashay toban soo dhintay ee xuquuq lagu siiyay kuwa koonfurta ee doob cadiire ee la yaab baandara waa kuwii barigaa galay markii xorriyadii la helayna hoggaanka waxa noqday ee sii socday waa dagaaladii la oran jiray dagaalka qabow ee labada qaybood bari iyo galbeedka Afrika gudaheeda baa kiina ina saameeyay oo ka balooya waxa ka dambeeyay jabhadii warigeeska Afrika 100 sano ku jira qas waa la nala qaba geeska Afrika dhan baa nala qaba waxa qaba maadaama dhibaatada Soomaaliyeed ay ku horeysay oo jabhadaha iyo dagaalada sagaashamaadka ay gashay inay Soomaaliland qorsata ugu soo horkabata ee ka baxda ee dhamaantood wargaal doona ee loo soo noqon doono ee kuwa maanta indhaha ka leelanaya ma ictiraafsan ayagu ima doonay ictiraafi doonaan waa hadaynu regalmadeen midnimada iyo talada kanada inaga inoo taala intii hore waynu soo qabanay oo waynu soo dhisanay maanta waxay taagan marxaladii ahayd koow nabad laba midnimada saddex horumarka way dhibteen la yiraahdo inta la sameeyo way dhibteen laakiin waxa la rabaa qof waliba inuu niyad ka keeno oo maxaa laga rabaa qof walba
سلطانك تاجرك حاجك لعقت عليه سياسك كرميك وحا لغا ربا وانو هروب مرينا marka aad waxa naftaada la jeceshahay waraanka la jeclaato wax tiftiye marka aad cun iyo cuntaado marka aad xantiisa wanaajiso ee aanad balaayo horseedin ee balaayo aan noo dhaweyn aanad fidinin sida dhacdo mar walba taasaad ku gaaraysaa nabad iyo horumarkaaga ubadkaaga meel ku gaaraya ku gaari maynana kala oodan oonay baran iyo gabraysa qool ku gaari maynana ascaad iyo goori warska warhaynin ku gaari mayna hargeysa say codso warhaynin maxay ku dhacaysaa iyadoo ni wala aamina Soomaaliland tahay oo sayrac ka guuto oo degi karta ascaanood oo sabta inaad ammaan adiga iyo xoolaha intaad ku karto inaad ascaanood aad ku xiro tahay aad ku wareegsan aad taado waxaan ka taliyay hargeysa inta ascaanood taado oo aad ka taliso barbara yaa ku diiday waa Soomaaliland xeelkeedii dastuurkeena ogol maxay gool isku xidhayna maxaa midna ugu xamayaan waxaan ku talinayaa maanta in aynu ka bilowno qaranimada wadaskeeda taasoo horumar ka imanaya dabcan faqiir baynu nahay waa run faqriga xoog baa kaga bixi karaa baryada laga bixi karo maanta labadii sanadood dadaalka aynu sameynay ilaahayna roob inoo gaaray waxa inoo waxaynu maanta beer oo Soomaaliland gacanteeda ku beertay oo kayd ku haysaa hay-adda ka hortagga afweynka ay gacanta ku haysaa raashin ku filan karna haddii ay dhibaata dhacdo inta aanu soo gaaray adduunku caawa xamaye iyo waa talaabinayo waa taas oo si xoojina gobol lagu beeri karaa taale raashinkaasi maanta waxa uu badan ka soo baxaa waa saddex meelood oo kaliya hadday calaf xoolaa tahay iyo hadday xoolaa tahay waa beer iyo xaaxi iyo wajaale boqolaal meelood oo kala beeri karaa waxaynu ka cabanaa biyaha la siiyo waynu qodan karnaa dhaqaale iyo awood haddaynu isu geyno biyo xidheeno gobollada haradada aynu ku xidhi karno waxaa laga yaabaa dhaanka ama xafiirka waraabin kara magaalo nusjeeda inuu u baahdo 500 oo kun gobol walba qurbajooggiisa iyo taajirkiisa iyo xoogga la sugayaa way xidhan karaan intaynu gacanta horsano leeyahay hay'adda hiblaayo noo kaalay waa caqliga sugayno inaga maqan waxaan ku soo ururinayaa Soomaaliland maanta waxay loo distoorka waxay lahaayeen labada gole sharci dejinta iyo golaha deegaanka iyo madaxtooyadu waxa koob ka ah loo ilaaliyo sharciyada qaranka iyo distoorka si loo ilaaliyo waxa koob ka ah iyagu laftooda hay-adaha loo doortay inay ilaaliyaan distoorku wuxuu qorayaa doorashada iyo xilku waa 5 sanadood dhamaantood baarlamaanku waa 5 sanadood madaxtooyada waa 5 sanadood dawladda waa 5 sanadood walaalayaal maanta si uu distoorkeenu u sii jiro si qarnimadeenu u sii jirto si aynu hore ugu marro si aynu markaas soo baxno dhammaanteen waxaynu wajibayn xoog saaraysan doorashada u qaban lahayn doorashada waxaynu hor joogaa waa findhic waa wax la daweyn karo saddex xisbi qaran waxay isku raacsan doorashada dhammaan shicibku wuxuu isku raacsan doorashada dhammaan golaha baarlamaanka fadhiyana waxay ogol yihiin inay muddo dhaaf yihiin oo loo baahan yahay doorashada tobanka ka dira waqaayo fadhiyo gudoomiyuhu iyagana waa ka dira maxay u qaban lahaa yaa inaga shaqeynay macadu waa inay soo dhex galo iska fahamsiin la mado qomayna nahayo intay ay dhex taalay dhaweyd lahayn waxaynu ku muraynaa 2 sanadood hala bedelay komishanka doorashooyinka hala bedelay iyo sharci ma aha haddana waxaynu baran kala doortay sharci ma aha iyo la bedeli kara in kala dooro war waxa soo doorashada ugu joogsan kara ma guddiga doorashada hore waa nimadeedii waa waayaan way u baahanahay kama maarano kuwa dambe la doortay inaga dooranay waa sharci waa dadkeedii iyo inaga oo dhammaantan talada soo tagnaa sano doorasho qosnaa qaban kara insha Allah waana dhamayn doonaa gabagabana way soo gaar doontaa arintaas halka in hayaan waa intaana ma aha inuu u dugo distoorkeedu ma aha inuu dalku doorasho waa khalkhal iyo soo hormaad ku yimaado waxa soo jeedinaya inuu dhammaanteen u gudto si doorasho loo qabo haysto ciidamada qaranka maanta wixii uu qabsoomay waxyaalaha ugu waaweyn ee ku aqbalay waxa kamid ah waa markii uu horeysay ee 110 leyli sarkaal lagu taabanayo dalka oo ay ka mid yihiin 10 hablood aad iyo aad ugu habalinaya waa talaabo hore
waxaan ku abriyanayaa inuu ergasho shaqo qaran oo imika loo diyaarinayo intii ka hor ka baxday inay soo gashan tahay barkooda waxaan ku abriyanayaa ciidamada kale waxaynu dhammaynay xeerkii cabsida ciidamada qaranka oo dhan oo aanay noqonin ciidamada qaranku markay gawaan inay garan waayeen meel taariikh cidka mas-uula marka sharci soo leeyahay sanadkan ka bilaabo waxaanu bilaabi doonaa in lagu dhaqmo oo qofkii ritaar garooba ama naafoobe ciidamada kamid ah kolba tabarteedu waxay tahay wax ugu badan ugu weri kara ay noqoto inay barbil noqoto in xaq la siiyo iyo xuquuqda ciidamada beshbooda in wasiyo laga bilaabo taas oo lagu dari doono shaqaalaha dowladda waa la mid isagana waa raacin doona waxaan ku abaliyay ciidamada qaranka oo dhan oo doonaya halkan inaan ka xuso inay ciidamadu dadaal badan muujiyeen sanadka gaar ahaan ciidanka asluubta dhismayaal badan iyo dadaal badan inuu ka sameeyey intii muddooyinka dambe ah hawlihii ciidamada asluubta sanadkii dhoweyto waxaynu faataxada uleynaa geerooday taliyihii ciidanka booliska allah naxariista fadal faatax bismillah balgii lixda la dilay ayaa waxaa la yidhi waxaa la dilay lixda oo jabhadii maanta loo yaabo inay kala yaacdo dabeetana b b c wuxuu ku yidhi gudoomiye magaala sireeyaha Soomaaliya wada lixda dhammaan shaqadooda lixda dagaalkuna uu soconaya qarankuna waa horu maray maalintii fadal dhintay ee ku-xigeenkiisa loo xanuunsaday shicibku u warwaray dadkuna aad buu yaabay nabadgelyada waa loo baqday waxaan idiin sheegayaa qaranku inuu leeyahay boqolaal fadal boqolaal lixda iyo boqolaal lamid ah oo halkii soo baratay buuxiyad heliyo kaliyihii loo arkeenay isaguna weli hawshiisa jirtoo xulad yahay dadku aad iyo aad u mahadshaytaa markiisa isagana waxaan ugu shirteynaa inuu sii wada hawshaa maantana dhammaan ciidamada qaranku talabooyinka ay qaadeen oo ku mahadina waa in arkaa kasii xoojiyaa marnabad baan hambaryanayaa marsaxaadna waan hambaryanayaa guul iyo goolna baan noo rajeynayaa dhammaan Somaliland midnimo nabad iyo horumar waa inoo saddexdaa mabda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi sanadkan waxaynu bixinaynaa bilan ciidamada qaranka waxaanu dowla aan qoraynay sharcigii garaadada ama darajooyinka lagu kala qaadan lahaa waqtiga la qaadanayo shuruudaha lagu bixinayo shahaadadaha lagu qaadanayo isna waa gabagabo waxaynu sii dhammaynay xeerkii xaqsintoo sheegay iyo waxaynu soo dhammaynay xeerkii bilada waxaa la bixin doonaa biladu qaybsan iyo biladgeedka qaranka waxaa jira bilada howlgalka waxaa jira bilada aqoonta ninku hadduu keeno infection cusub waxaanu bixin doonaa guud ahaan waxaa la bixin karaa hadba ciidanka tiradiisu maanta intay ciidamada kala duwanaa qaranka oo dhan 750 biladood oo isugu jira dahab iyo qalin oo kala qaybsado biladgeesi qaran biladgeesi aag waxaa ku xigi doonta taawalkarka tada'da asluubta intuu shaqeeyey aqoonta ilaa dable ilaa janka u sarreeya maanta waxaynu saalo soo qaadanay labada taliya qayb ee aagga hore tubarad oo ahaa labadii taliya qaybeed ee muddo 20 sano ku dhowaada aagga hore jiigatay oo iyagii ciidamadooda qaranka ay ka mutaysteen in loo aqoonsado inay yihiin gutooyinka koowaad ee ugu hormaray inay helaan biladgeesiyaal labadoodii taliya doolaan iyo axmed hore labadaba waa garanaysaan labadaba hadda waxaan ku biladgeesi qaran waxay u qaadayaan ciidamadoodii